السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جناليسكينا كلا عانتي شوعاتي ميديا فضلا سي شرقرية ومارك تدوال لكوروني هاي أسحابتنا وسي قدبية وحرمنا إنان دور دقيقة كسو كوبنا سفركا أدوال لكوروني هاي نينك اللي يراهدو موسى قمويو نينك موسى بيح اللي يراهدو يدور كمدحوينها هو سفر كيسو حقوق التمية وكتغي ماشي اللي يراهدو أتسابوا waxaan isku weydiin doonaa su'aal ah qabkii farmaajo uu noo sheegi jiray halkuu ku dambeeyaa halkuu maray 5 sano kadib ma waxay taagan tahay in maaragta dad la ku roon yahay Muuse Biixi roog lagu soo dhaweeyo oo roog loo dhigo maaragta dad la ku roon yahay sidaas la midana uu garoonka uga hortago wasiirka maaliyadda ninka ugu magacaaban Abiy Ahmed maaragta direed sidaas la mida ilaa waxaan ognahay ninkaas inuu farmaajo asagoo ku soo dhaweeyo meesha la yiraahdo Addis Ababa markuu tago inta ugu badanba haddaba maxaa farqiga u dhaxeeya mar hadduu farmaajo qaran midoob ka qudbeynayo oo adduunka meesha la iska aqoonsadaa Muuse Biixi asaga maarta maxaa farqiga u dhaxeeya haddii marba asaga isku ninna uu soo dhaweeyay isku sina loo soo dhaweeyay roogana isku nooc loogu dhigo su'aashaas ayaan rabnaa haddii alla idmo inaan maaragta haddii alla ku run yahay halkan aan kusoo maaragta kusoo bandhigno hase ahaatee aan ku hormarno safarkaas muxuu daaran yahay nimankaas maaragta haddii alla ku run yahay maaragta iyo doorka la yiraahdo maxay ka faa'iidayaan waxaan xusid mudan wax walbaba waxay maaragta haddii alla ku run yahay sawirada noocaas horta maaragta in Muuse nin qof madaxweyne ugu magacaaban Isaaqa in maaragta meel lagu soo dhaweeyo horta waxa lagu seexiyaa qowmiyaddan oo maaragta iyo door la yiraahdo oo maaragta sawiradii ugu dambeeyay oo maaragta haddii alla ku run yahay laga soo qaadana halkaasna 10 sano soo socota iyagoo isticmaali doonaan madaxweynaha kan hadda jooga iyo kuwa soo socdaba kuwa ayay isticmaali doonaan si maaragta dadkaas haddii alla ku run yahay cirbadda suuxinta looga dhigo hadba loogu sheekeeyo qaranimada soo dhow waxyaalo noocaasa waxyaalo ka faa'iidayaan horta intaas ayaa ugu soo dhow Abiy Ahmed muxuu ka soo faa'iidayaa marka su'aash halkaas ay iyadana jirtaa Abiy Ahmed wuxuu ku socdaa oo ninkan u soo dhaweeyay oo 5 sanana u joojiyay inuu soo dhaweeyo wax la yiraahdo maamul goboleed iyo intuu yimid 2018 ilaa haddaba wuxuu u degi dam leeyahay magaalada taariikhiga ah Zeylac la yiraahdo ee xeebta badda cas kulaalaysa ee istiraatiijiga waliba ka istiraatiijisan Berbera iyo maaragta haduu Djibouti iyo maaragta haduu la ku roon yahay maaragta Asmaraba intaaba meel ka istiraatiijisan weeyaan sababtoo ah baabalmandabkii u dhow ayagoo ciidamo samaysanaya haduu la ku roon yahay sidaas la mid ah nimanka isku hayaan maaragta webiga Niil iyo maaragta daamka ay dhisayaan masaaridana baddaas ay sii marto meesha lagu dagaalami doono ayaa waxay tahay baddaas dagaalkana waxa loo soo wareejiyay dhulkii maaragta Itoobiyaanka inta laga soo wareejiyay wuxuu dagaal haduu dhacayo wuxuu ka dhici doonaa dhul Soomaaliyeed ama Jamhuuriyadda Soomaaliya labada isku tagtay iyo magaalada Zeylacba waxa maaragta haduu la koronaya dhici doona maaragta dagaalada culayska intaas leeg ayaa ka dhici doona maaragta ninkaas wuxuu Abiy Ahmed wuxuu u socdaa magaalada Zeylac inuu qabsado maaragta halkaas dago ciidamadiisa halkaas ay koonsado halka uu maaragta haduu la ku rooyo ninka uu ku dhakhleeyo uusan maaragta meelna uga socon soo dalka u yimidna ay noqoto sababtoo ah ciidan Soomaaliyeed oo dhisan oo maanta ka kicin kara ama yac ka dhigi kara ma jiraan maaragta haduu la ku rooyo yahay nimanka la yiraahdo ninkaas Abiy Ahmed intaas weeyaan Muuse Biixi ninka la yiraahdana arinta u socdo wax kala ma waa un sawir inta laga soo qaado dadka masaakiinta oo hoos yimaada oo lacagaha ay ka soo guraan dal iyo dibadba in looga dhigo maaragta dawlad ku cirbad suuxtina oo la yiraahdo waxa soo socda maaragta itraafki oo kaabigu soo haya sababtoo ah 30 sano lagu soo waday intaas maaragta dawladda sidii ilaa markii ilaa hadirtan sidii bay u hurdaan inta yarta wax faahfaahintana waa inta maaragta xamar timaada marka aan soo laabano ninka la yiraahdo farmaajo waxaan weydiinaynaa halkaan rabnaa inaan ka weydiiyo hadduu la ku roon yahay aawo qabkii uu lahaa maaragta waan soo celiyay dhowr sano ka hor oo ku ololeynay muxuu markaa noo sheegi doonaa sababtoo ah qabkii waa jabay oo qab ma jira maanta oo sidii asaga loo soo dhaweynay ayaa maamul goboleed asaga ka tirsan loo soo dhaweeyay cid walba waa ogtahay waxaan rajaynaynaa inuu maaragta uga soo jawaabo sidoo Kenya uga soo jawaabo sababtoo ah markii Uhuru Kenyatta uu soo dhaweeyay oo roog cusub soo fidiyay oo wasiirkiisa u soo diray maaragta Soomaaliya waxay u jirtay xiriirkii ayaa u jirtay maaragta Uhuru iyo Kenyaba waxaan rajaynaynaa Abiy Ahmed iyo Itoobiya inuu xiriir ku jiro hadii kale uu noogu sheego qabkii uu sheegayay oo maaragta 5 sano nala hortaagnaa qab baan soo celiyay inuu noo keeno hadii alla idmo maaragta ninka la yiraahdo maaragta farmaajo sidaas la mid ah maaragta waxyaalaha kale ku ololeyn doonaan dabcan wax kale oo soo haray ma jiraan oo ah
inuu ku ololeeyo marba hadduu shalay noo yidhi qab baan soo celinayaa qabkiina maanta uu baaba'ay oo 5 sano kadib aan qabkii lahayn wax kale uu noo sheegi doona ahay ma jiraan akhyaaray mar kale waxaan ka codsanaynaa inaad sii sheer garaysaan asxaabtiina u gudbisaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu